وكم هسنتهين وقتها إيمانشها كسعة وكسوق يبكشين السويماتين كان كنت حلي أدق بالوجرة السويماتين دو أي أدقيهين waxaan u dardaarmaynaa in aan u hoggaansanno talooyinka hay-adaha caafimaadka faraha iska maydhidooda in la kala fogaado iyo waxyaabahaas oo dhan in aad loogu nuglaado oo loo dhaga nuglaado aad baan u dardaarmaynaa haddana dabcan isuimaashinka qaarkood lagama maarmi karo oo duruufaha iyo howlaha ku xidhan intaa marka laga yimaado caawa afurkan waxaa iska lahaa oo loo sameeyey baahda isbedeldoonku qaar muuqda iyo qaar qarsoonba waa lahaayeen markaad cis kastoo meesha joogta waa ku mahadsan tahay inay timid ujeeddada aynu afurka u samaysanayna waxay ahayd maadaama aanu maqnayn aan safar idinkaga maqnayn muddo 2 bilood sidaan qiyaasayo aanu idinka maqnayn marka aanu baxaynayna aad naga dirteen halkan intan oo kale isuma imaanin laakiin intan in ka badan baan la tashanay oo gaargaar ula kulannay taladuna waxay ahayd xaaladii cakirnayd ee Jubbaland ka taagnayd xal inaanu raadino waxaad ogtihiin Jubbaland iyo siday ku aasaasantay iyo siday ku dhisantay iyo tiirarka ay ku taagan tahay iyo duruufaha iyo xaaladaha ay ku sugan tahay kulligaan wada ognahay waxaan ognahay marar badanna aan sheegnay Jubbaland khilaafaadka way u nugushahay aad bay ugu nugushahay deegaamada kale way uga nugushahay haddaad fiirisaan dowlad goboleedyada kale iyo deegaamada kale inta badan waxaa laga yaabaa ama ay tahay Soomaalidu xaqiiqda inta badan inay ka leexleexatay jeceshahay dad badan oo ka mid ah laakiin dawlad goboleedyada kale oo dhan hadii la fiiriyo 80% iyo wax ka badan waxa laga yaabaa inay beela gaar yihiin maamulkaas ama ay u badan yihiin laakiin Jubbaland waxaynu ognahay waa meesha federaalnimadeedu ay dhab tahay oo Soomaali oo dhan ay ku dhan tahay Soomaali oo dhan ay ku dhan tahay cid Soomaaliya oo magacan la bixiyo 4.5 ka maqani ma jirto ma lagu kala badan yahay ma lagu kala yar yahay sidee la kala yahay xagee la kala degaa waa sheeko kale mar hadday sidaa tahay way u nugushahay khilaafaadka innagu tiimkeenna halka jooga waxaynu soo bilownay barnaamij in doorashadii Jubbaland la rabay inay ka dhacdo isbedel oo Jubbaland ku yimaado xilli dheer oo doorashada muddo ka horeysay baan soo bilownay ololaheena dabcan ololuhu xilli uu muuqday iyo xilli uusan muuqaninba waa jiray qofba meel buu markaa campaignkiisa ka bilaabay aniga maalintan airportka ka soo lugeynayay waxay ahayd 27 bishii labaad 2019 27 bishii labaad bay ahayd maalinta airport ka soo lugeynay macnaheedu waxa weeye intaas xaaladdu Jubbaland way cakirnayd maalinba meel ha joogto campaign ha socdo doorashooyin ha iska daba dhacaan baarlamaanna ha iska daba samaysmaan gudoomiyaal hal la doorto gudi doorasho hal la samaysto maxaan ku yiraahdaa maalinba meel bay joogtay ummaduhu marka ay isqabtaan oo la isqabto waxyaabo lagu kala baxaa jira ama dastuur baa lagu kala baxaa ama guurti iyo odayaal dhaqan oo wax kala saaraa jira ama maxkamada dastuuriya jira oo dadka kala saara ama qaabab badan baa jira qaababkii oo dhan Jubbaland waa shaqeyn waaye ama maba jirinba baba abuurmeen halka markay marayso doorashooyinkii iska daba dhacay bishii August meeqa laga joogaa bishii 8aad waxa laga joogaa taqriiban sanad iyaduna ku dhawaad waxba kama dhimana
haba kama dhimana 9 bilood iyo sanad waa isku mid halkaa marka ay marayso oo wax waliba istaageen wax waliba Jubbaland ay istaageen aynu ogna wax waliba ay istaageen waxay noqotay yaa ka naxaya yaa u jiir damqanaya sidee xalku noqon karaa waxaan hubaa intiinaan oo dhan inaad ku mashquusheen oo ka fakarteen oo ka dhibaatooteen oo maxaan ku idhaahdaa aad ugu wada mashquulay xalku xaguu jira mindi ku taag iyo hebel iska celi iyo maxaan ku idhaahdaa lugaha ha la isqabsado iyo maxaan ku idhaahdaa ha la isla soo guriyo albaab walba waa la garaacay waxaa runtii sharaf ah oo karaamo ah oo aan cid walba aan uga mahad celinaynaa ilaahay baa mahadda iskale laakiin inta kale aan uga mahad celinayno inaan wax dhibi oo gacan ah marka laga reebo shakhsiyaad inaga geeriyooday sababo kastaba ha u geeriyoodaan la dilay laga reebo inaan gacan qaad muuqdo oo sidii deegaanada kale Soomaaliyeed ka dhacday oo kale uusan ka dhicin ciidamo la isu soo diro maxaan ku idhaahdaa difaaciye la isu galo albaaba la iska xiro maxaan ku idhaahdaa la isquuqiyo hadda la isgalayaa iyo hadda la soo afjaraya waxaad ogeydeen inuu soo marnay qof waliba uu garanaya inaga naga mid taariikhdaas dheer marka aynu soo marray waxay soo gaadhay xilli loo baahan yahay in caqligu shaqeeyo oo la fakaro innagu waynu tashannay waynu isu nimid waxaynu nidhi sidan ma lagu jiri karaa maya laguma jiri karo sidaas darteed aan xal aadno xal haddii la isqabto oo laba arrimood la isku qabto oo la iska soo horjeesto hadda marka ugu dambaysa waa la wada hadli doonaa ama hal isdilo ama la isag fadhiye cid in ay caqli iyo tanaasulaad la timaado waa laga maarmaan cidda caqliga iyo tanaasulaadka la timaadee ma aha inay doqomo yihiin ma aha inay liitaan ma aha in laga adkaaday ma aha in maxaan ku idhaahdaa ay laga macno badan yahay ma aha laakiin waxaa laga yaabaa amar ilaahay iska noqoto sababtoo qofka kursiga fadhiyaya iyo qofka ka qaadanaya ka dambaynaya ka bedelaya iyo sida wax isu bedelayaan ilaahay baa maamula inagu waa iska soconnaa caawa 22 bishii labaad 2019 marka airportka ka soo lugeynay musharax aha haddaan ogahay caawa oo kale inay jiri karto waxaa laga yaabaa si kale inaan fakari lahaa oo la iisii sheegi lahaa oo la dhihi lahaa habeenka noocaas halkaasaad ku kulmi doontaan saasaad ahaan doontaan haddii la dhihi lahaa waxaa laga yaabaa si ka duwan inaan fakari lahay laakiin ma inaan ogeyn waana waxyaabaha uun ilaahay keliya u ogyahay intaa marka la isu wada geeyo innagu waxaan raadinaynay inaynu maamulka bedelno wax qarsoon ma aha wax mugdi ku jira ma aha wax maxaan ku idhaahdaa miiska hoostiisa lagu dhahayo ma aha public baynu u dhahaynay meelo fagaaro ah inagoo dhaliilahooda sheegayna maynaan caayaynin waxba umaynaan dhibin laakiin dhaliilahoodaan sheegayna waxaynu sheegayna kulli wada run bay ahaayeen welina waan rabnaa in wax laga qabto oo waan ku daba taagnaanaynaa in wax laga qabto intaa marka laga soo tago xaaladdii waxay soo gaadhay meel dowladdeennii federaalka ahayd ay gacmaha ka laabatay oo xal ay u weyday maamulkii shaqaynayey ee Jubbalandna uu xal waayey oo gacmaha laabtay beeshii caalamku ay faraha laabatay oo hal is hor fadhiya ummadeennana dan uma aha sidaas dhinac kastoo la eego si kastoo loo fakaro dan uma ahayn ummadeenna halkaa marka ay marayso isbeddelkii aynu rabnay ama xildhibaano baarlamaan ha noqdaan ama madaxweyne ha noqdaan ama mas-uuliyiintii kale ee maxaan ku idhaahdaa xilalka kala qaban lahayd ha noqotee dhammaanteen sidaas aynu ku fakarayn anugu waxaan ahaa mas-uulkiinnii xilka madaxweynaha doonayay macnaheedu waxa weeye kulligeen waxaynu ka wada shaqaynaynay inaynu kursigaas qabanno markaa kabacdina aynu soo daadejinno inta kale soo saa ma ahayn
وين ددالي كذن كنا واد داشين ويلا رادسين أنا واد دالو واد راديي لكن عقلك وين نكون دراوي يعني هي قرينا معنا إنه حدي كرسي أو وين أنت كلنا هبا بعضنا من هيكر صحنا معها أنا تاس وين كرسي يوم ما تهديت ما دعنا أنا ما كرسي حاجة سكرية إن دجال دعاء وتبلان أنت دجال كدعاء سبب أنك عن لنا هي أو أنتان دجالنا أن قبصنا أو ضدك قارن عرران قارن أن لينو قارن أي محمكو إلى هذا جريها جلان أنا مذهبا كان هنا نوع أنتمس معنا ما سويناش sidaas darteed intaas aan sheegay iyo in ka badan oo lagu sii dari karo oo la soo koobi karin waxayna tusaysaa inaynu sidii hore si ka duwan xilligan maanta ah oo duruufuhu adkaadeen waxa caalamka ka dhacay taariikh maarta caafimaad darrada ilaahay keenay ilaahay ummadaha ka qabto waynu aragnaa waa wax muuqda waxaa taa dheer fatahaadaha iyo roobabka baar dheer waxa ka dhacay waynu aragnay kulligeen inaan u gurmano waa laynooga baahan yahay deegaan ahaan Jubbaland ahaan meelaha ugu badan ee xigto hadda inoo soo xigto ka mid yahay jasiiradahan madhawa iyo waynu maqalay gosha uu ku soo socdaa qofkii gosha yaqaan baar dheer oo haduu ka fato gosha uu ku soo socdaa oo ilaa iyo gooboyn wixii xagga ka waa hubal inuu ka fatihi doono qarna waynu aragnaa waxa ka dhacay beledweyne meelaha kale oo dhan intaas oo dhan waynu aragnaa waxa ka dhacay intaas oo dhan inaga ina sugayaan inaynu gargaar iyo ka geysano deegaano kale oo badanna waa mushkulada kuwaas oo kale ah ayaa wada haysta inagoo intaas oo dhan maanta arkayna qofna kuma fakari karo ama kuma si deganaan karayo qodobkii aynu haysanay ee ahaa Jubbaland doorashaha laga qabto ma suuragelaya caqligeenu inama siinaya inaan dhahno doorashaha la qabto waa sax in la dhahno doorashaha la qabto laakiin goorma la qabanaya xaaladan hadda lagu jiro ee ay tahay nin walba nafta guryaha la isku soo xidhay telefoon in lagu wada hadlo mooyaan la isu tagi karin wax dayuurado socday meed kismaayo ku aragteen mintii muddo adduunka oo dhan waa saas adduunkana dayuuradahaas wax kala gudbin jiray taas marka waxay keentay in caqligeenu nasiyo Jubbaland maanta doorasho kama dhici karto goormay ka dhici kartaa ilaahay baa yaqaan not only Jubbaland kaliya ma meel kasta oo caalamkii ah bay taabatay corona ilaa goorma joogi kartaa yaa og ma waagi hore waxa la lahaa bisha April markay dhamaato bisha May horaanteeda shaqooyinka waa lagu laabanaya waa beenooday intu socon doona lama yaqaan inahaas oo dhan marka la isku wada geeyay oo la fakiray oo siyaabo badan loo rogrogay waxa la gartay oo anagu aan garanay haddaana dirteen inaan lagama maarmaan tahay in Jubbaland la isu raadiyo dib la isugu raadiyo la isu keeno la mideeyo laga shaqeeyo muddadan maxaan ku idhaahdaa 2 sano ama 3 sano sanadka hadda 4 sano sanad waa dhamaaday 2 sano hadday sanadka dambana waa iska kaambeen waa 2 sano waxa maamulkii jira uu shaqeynayo cid kasto maamul noqota uu shaqeynayo waa 2 sano sanadka dambe waa iska kaambeen waa intaynu buuqay ku jirnayno halka deganeen oo kale taas marka waxayna baraysaa inaynu waqti siino Jubbaland si doorasho uga dhacdo inaynu waqti siino waqtigaas waxaa noo soo baxday inay lagama maarmaan tahay in madaxweyne Axmed Maxamed Islaam aan dhahno sii wad oo dhamaystir 4 sano dhamaystir taasoo ku timid sababaha aad garan karaysaan iyo dib u heshiisiin iyo wada hadal si muddada markay dhammaato doorashooyin loo qaban karayo oo dadku ugu diyaarsan yahay annagu marka haddaan nahay mas'uuliyiinta aad wada hadalka u dirteen waxaa noo muuqatay inaanu heshiiskaas qaadanno isku samirno heshiiska marka aan qaadanayno qofba sidoo raba ha akhriyo dadka aan rabin wanaaga
dadka meelaha dulduleela ka eegaya waa la isdhiibay haddii la isdhiibayo walaalkaa inaad isu dhiibto wax ka fiicani ma jiro haddaad tanaasuleysid walaalkaa inaad u tanaasusho wax ka fiican ma jirto danta Soomaaliyeed inaad u tanaasusho wax ka fiican ma jirto danta shacabka inaad u tanaasusho wax ka fiican ma jirto maalin walbana way taallaa doorashada dambe wayba soo socotaa wayba dhowdahayba odayguna hadda wuxuu yidhi waa idinka tegahayaa muddadan hadday dhammaato bes weeye waa idin macsalaamaynhayaa marka wayba sahlan tahayo ninkii wax isku haya waaba la iman doonaa waagaasaaba la isla iman doonaa muddada aan u hadhayna aan si fiican ula shaqayno oo dhinacyada ka istaagno oo aynu shaqooyinkii kharibnaa ee inoo muuqday inagu qabanno maxaan ku idhaahdaa marka muddadu timaadana aynu isu diyaarinno qofkii inoo qaban lahaa xidig ma aha seeraar ma aha sheekh daahir ma aha colow ma aha qof kale ma qofkaynu u garanno kuwa kaloo badan baa imaan doona xaq u leh ilaahay baa qoray qofka imaan doona haddiiba adduunkana sii jiraba adduunkan inuu jiri baaba hadda muran ku jirteen sida ii muuqata aniga ma u malaynayaba xaalku siduu yahay ma qurux badna haddiiba adduunkana sii jiro caadigiisa ku soo laabto aynu ku talagalno waxaan rabnaa marka bulshadiinnan iyo inta badan ee dhegaysan doonta guda iyo dibad isbeddel baynu doonaynay inaan Jubbaland ka samayno horaan u dhihi jiray isbeddelku waa xanuun badan yahay odayaashaas oday Axmed iyo tiimkiisa inaan meesha ka qaadano waa diideen xanuunkii waa u adkaysan waayeen isbeddelku waa xanuun badnaa xanuunka waa u adkaysan waayeen innagu aan xanuunka u adkaysano oo inagu isbeddelka aan qaadano dhaano okay annaga maaragtay maxaan ku idhaahdaa qaadanayna kiniinka khadhaadh ee malaariyada annaga liqayna markaan aan taa isla qaadano heshiiska annagu aan soo qaadnay bilowbu ahaa idinkaa laydinka rabaa inaad qaadataan u shaqaysaan oo niyaddiinna ku dejisaan oo kii cadhaysan oo cadhada aad iska daysid oo kii maxaan ku idhaahdaa dagaalansanaayo oo dagaalka aad iska daysid oo kii maxaan ku idhaahdaa wax tabanayo waa bir ramadaane aan iscafino oo ummaddaas reer Jubbaland iyo Soomaali iyo islaamka oo dhan is wada cafiyo taasaynu ku guulaysan karnaa ummaddeennana aan wax ugu qaban karaynaa innagu isbeddel doon ahaan tiimkeennaan inaynu tiimka kalena layno caydhino qaxaan dhibaatoodaan oo meesha u hadhna marna ma aynaan rabin mana rabno ayaguna ma rabaan dabcan ciddii rabtaana waa caqli xuma cidda maanta ka fakaraysa hebel hal shakhsi oo magaalada jooga ama dalka jooga inuu ka maarannaa ma jirto hebel muu cararo oo hebel baa la dilo oo hebel muu maxaan ku idhaha meel kale aado ciddii ka fakaraysa oo dhan waa khaldan tahay cid kasta oo ku fakaraysa military operation in inta military yimaado maxaan ku idhaahdaa adduunkan military qabsado oo bahalkiiya maanta ku fakaraysaana waa wax aad u adag wey waa wax aad u adag oon macno samaynaynin weliba ummaddan xilligan maanta in qaarna ay dhintaan oo dagaal ku dhintaan qaarna ay burburaan qaarna ay maxaan ku idhaha qaxaan qaarna ay maxaan ku idhaahdaa u arkaan in laga adkaaday oo ay maaragtay hoos isu dhigaan dadkeennu uma baahna maanta waxaan rabnaa marka iyadoo gacmaha lays wada haysto inaan wada qaadanno isbeddelkaas kiniinka khadhaadh aan wada liqno kuwiina cadhaysan kuwiina maxaan ku idhaahdaa hoos ka guuxaya kuwiina maxaan ku idhaahdaa leh maxaa sidaa loo sameeyey qofkii isagu caqli kaa ka fiican haya ee la waraanaha haya bahashii meelay ka dhowdaay odaga iyo kooxdiisa aynu iskaga riixi karayno caqligaas fiican waa horaan ka rabnay inuu miiska soo saaro u yidhahdo halkan ay taalle waan weyne waa weyne dadkan reer Jubbaland Jubbaland ku noola ma aha in cidina guulaysatay cidina in laga guulaystay ma aha waa la heshiiyey heshiisku labada dhinacba uu ka yimid tanaasulaadku labada dhinacba uu ka yimid isbeddel doonku dawladda dhalan doonta ayagaa hogaamin doona haddii aan la yidhaahdo qayb bay ku lahaan doonaan waxay ku lahaan
gabdhaha un baa meesha ka noqday inta hadda kadib shirarka gabdhaha loo badin doonaa raggu 10% bay noqon doonaan haddii aan la yidhaahdo kuraasta la heli doonana gabdhaha u badnaan doona ogaada ku talagala dowladda dhalan doonta ee Jubbaland qaybaha dowladda la dhisi doono golaha wasiirada maxaan ku idhaahdaa saraakiisha ciidamada agaasimayaasha maamulka gobolka iyo degmooyinka maxaan ku idhaahdaa kaabayaasha iyo hay'adaha kale isbedel doonku waa dadka reer Jubbaland dhalinyaradii iyo aqoontii iyo maxaan ku idhaahdaa dadkii wax bartay doorkooda ka qaadanaya maaha inay iyagu wada qaadanayaan odayaashii tabanayay in dhinac loo riixay oo odayaasha qaar maaragtay maqaayadda u shidnayd waa laga wada qayb qaadanaya bahash haddii aan la yidhaha waa la wada lahaanaya diin dharaareed waa la isla arag soomahayn waa la isla arkayaa bahash isbedel doonku haddii aan la yidhaahdo madaxweyne axmed maxamed islaam way hor fadhiisanayaan sidan oo kale u hor fadhiisanayaan isbedel doon iyagoo oo keligooda way hor fadhiisanayaan waxaad rabtaan baad u sheegaysaan waxaynu tabanayno u sheegaynaa wixii dhaliilaynu u sheegaynaa haddii isagoo naga maqan aan xamin jirna xantiisii miiskaan horteedaan u dhigaynaa haddii maxaan ku idhaahdaa kuwa axmed shaarkiisa gashada madaxweyne axmed maxamed islaan shaarkiisa gashada ee isbedel doonka ku dhibaateeya kuma dhibaatayn doonaan waan ognahay wax badan oo shaarkiisa iyo magaciisa isticmaalaa dadka dhibaateeya mana laga aqbali doono waana lagu xisaabtami qofkii dembi gala waa la xidhi dembi qofkii gala qof aan dembi hadduu gala la xidhi karin qofka ugu sarreeya ama madaxweyne ha noqdo ama qof kale ahaadee ma jirto hebel maxaa loo xidhay maaha hebel waa la xidhay markii la yidhaha maxaa loo xidhay waxa loo xidhaa horta in la ogaado u baahan hadduu dembi gala waa la xidhaa laakiin si kale oo wax loo yeeli karaa ma jirto waa la hor fadhiisan ku kalsoonaada waa madaxweynaheennii aynu qaadanna heshiiskaas aynu maxaan ku idhaahdaa kalsoonida iyo dulqaadka iyo samirku waa wax wanaagsane aan qaadanno aynu niyadda furno oo u furno walaalaheenna kale dibu heshiisiintu waa bilow annaga waa sheegnay waad aragteen qoraalka soo baxay ee beesha caalamka ka soo baxay qaybaheeda kala duwan oo ilaa maalintii 23 ilaa hadda iska soo dababaxaya qodobada heshiiskana waa in sideeda loo fuliyaa mid walba ku qoran waxaana saldhig u ah dibu heshiisiin dibu heshiisiintu waa ballaaran tahay ma aha inta halka fadhida waxa weeye walaalaha naga maqan ama Jubbaland goboladeedii iyo degmooyinkeeda jooga ama caasimadii Soomaaliya ee maxaan ku dhahaa Muqdisho jira ama gobollo kale iyo wadamada dibadda caalamka jira kulli waa wada gaarsiinaynaa waxaan ugu baaqaynaa inta aan sheegaynay ee sababood ee aanu maxaan ku idhaahdaa hadda soo akhrinay in qof waliba uu ku qanco oo aan ku wada qaadano waxaa soo hadhay arinta dowladda federaalka iyo Jubbaland arinta dowladda federaalka iyo Jubbaland ma aha Jubbaland iyo dowladda federaalka khilaafkeedu inuu sii jiro inaga oo dhan waxaynu isu taagaynaa dowladda federaalka iyo Jubbaland khilaafkooda sidoo ku dhamaan lahaa waxaan ka shaqaynaynaa Jubbaland inay ku soo laabato doorkii ay ugu jirtay dowladda federaalka waxaan ka shaqaynaynaa in gacmaha la iswada qabsado tanaasulaadku meel walba ka yimaado madaxweynaheena qaranka maxaa Cabdullaahi Farmaajo uu yimaado dadkiisa iyo dalkiisa iyo deegaankiisa uu arko wixii tabashaa iyo wixii khaladaad ee ka jirana mar walba la xalliyo madaxweyne axmed maxamed islaam waxaa laga rabaa inuu noqdo mas'uul dowlad goboleedka Jubbaland mas'uul ka ah oo la shaqeynaya dowladda federaalka iyo madaxweynaha qaranka meel loo dhaafi karaana ma jirto khilaafka waa la dhameeyaa waa laba nin oo odayaal ah mas'uuliyad haya
waxaan ugu baaqaynaa inay aadaan meesha xalku ka dhow yahay meelaha xalku ka kala fogaanaya ay ka daayaan waxaan rabaa inaan ku soo laabto shacabka reer Jubbaland waxaan rabnaa kulligeen xagga inaan iska dhigno wixii kale oo dhan oo aan ka shaqeyno shacabkeena xilligan inoo haray maxaan ku idhaahdaa hadda aynu abaarayno horumar in laga shaqeeyo wayna dhaafeen dawlad goboleedyada kale oo dhan koonfur galbeed baa dhaaftay oo Jubbaland ay ka hor dhalatay galmudug baa ina dhaaftay hirshabeelle ina dhaaftay kulli waa ina dhaafeen waxayna inagu dhaafeen intii yareedeen inagu isku mashquulsanay aan aadna marka inaynu horumarka aadno oon ka wada shaqeyno oo amniga ka wada shaqeyno oo wadanka maqan xoreyntiisa ka wada shaqeyno oo aynu maxaan ku idhaahdaa u soo jeesano inaynu maxaan ku idhaahdaa hawshaas aynu isu taagno dhinaca bulshada arrimaha bulshada runtii waxyaabaha badan ee jiray bulshada dhibaatada ku ah wax laga hadli karo way aad u fara badan way oo aan la soo koobi karin laakiin waxaan ka xumahay aad uga xumahay caalamkuna wuu sheegay waliba waa dambi xilligan uu coronavirus jiro oo adduunka oo dhan xidhxidhan yahay adduunka oo dhan uu xidhxidhan yahay oo wax soo saarkii uu istaagay oo warshadihii istaageen because warshadaha shaqaalaha ka shaqayn jiray shaqaalihii waxa la guryahooda ka soo bixina oo ganacsigii iyo maraakiibtii iyo doomihii iyo wixii socday iyo dayuuradihii istaageen bulshada Soomaaliyeed ascaarta in lagu qaali gareeyo waa khalad waa ganacsatadu inay ka faa'iideysato cudurka inay ka faa'iido lacag ka samayso waa khalad waa dambi waa waxaan ognahay Kismaayo ascaartu inay tagtay 3 jibaar meeshii ay joogtay corona ka hor waa laga hadlay caalamka qofkii wax yar ku dara ascaartii hore waa dambi maxkamad baana la geenaya ganacsatada reer Jubbaland kiishka sokorta ma ku maraya 40 iyo something baa lagu sheegay meelaha qaarkood baa lagu sheegay markii horena imisa waa 20 iyo waa laba jibaar sax ma noqonayso ganacsatada reer Jubbaland hantida Jubbaland bay isticmaalaan maxaan ku idhaa tasiilaadka Jubbaland bay isticmaalaan laysanka Jubbaland bay shacabka inay u adeegaan baa loogu talagalay inay ka shaqeystaan loogu matargel waxa la rabaa inay faa'iido yar raadiyaan taana maamulka iyo mas'uuliyiinta iyo cidda waxa laga rabaa inay ku soo celiyaan meesheedii oo aan laga faa'iideysan shacabka looga faa'iideysan dhibaatada aan looga faa'iideysan iyo xaaladdan adiga lagu jiro dhaqaalaba soo gelin qofka uu shaqo aadin adduunka oo dhan bayna ka jirtaa inta marka laga soo laabto beesha caalamka waxaan ugu baaqaynaa annagoo u mahad celinayna taageeradooda iyo garab istaagooda iyo waqtigii dheeraay isjiidku jiray sidii ay waqti badan u geliyeen intaasoo safar ay noogu yimaadeen ay cid walba la kulmeen cid walba la hadleen wax walba ay isku dayeen ugu dambeyntiina ay ka qayb qaateen doorka ugu badan ay ku lahaayeen hawshan iyo gabagabaynteeda annagoo uga mahad celinayna waxaan ugu baaqaynaa inay door ka qaataan dhamaystirka iyo taageerada iyo in ay Jubbaland u soo celiyaan mashaariicdii hore u socotay xilliyadii maartay doorashooyinka ka horeysay mashaariic cusub oo badanna loo sameeyo inkastoo adduunka dhaqaalihiisa iyo xaaladiisa aad u cakiran tahay haddana waxaan ugu baaqaynaa Jubbaland in priority la siiyo mudnaan gaar la siiyo maxaan ku idhaahdaa in dadkan Jubbaland kor loo soo qaado dhaqaalihiisa iyo arrimaha bulshada iyo caafimaadkiisa iyo maxaan ku idhaahdaa dhinaca noloshiisa ayaan ugu baaqaynaa oo ka codsanaynaa waxa ku ballamaynaa haddii alla yiraahdo inagoo dhan oo gacmaha is haysana inaynu isu taagno midnimada iyo dib u heshiisiin aynu gaarsiino reer Jubbaland oo dhan meel kasto ay joogto tabasho in xagga la iska dhigo wixii xana xagga la iska dhigo maxaan ku idhaahdaa wararka faraha badan ee isdhex yaacaya xagga la iska dhigo qoladii maxaan ku idhaahdaa miidiyaha ee dhalinyarada ee maxaan ku idhaahdaa isbedel doonka waa mahadsantihiin dagaalkii aad qaadeen waa ku mahadsantihiin dagaalkii aad qaadeen waa ku mahadsantihiin maxaan ku idhaahdaa doorkii aad ka qaadateen waa ku mahadsantihiin
wixii aad qori jirteen iyo wixii aad sheegi jirteen iyo wixii dhaliil aad sheegi jirteen dembi ma aha طبعا annaga idinku hogaaminayno mas'uuliyiintii ahay annaga cid caayal ma odhanin laakiin qof walba aragtidiisa iyo garashadiisay ahayd laakiin wax kastood qorteen dembi ma aha beyj cusub baynu furaynaa oo ah in aynu beyjka nabadda iyo dib u heshiisiinta iyo midnimada aadno yaan furaynaa haddii alla yidhaah wixii hore waxaa la dhalay ciddii annaga wax naga sheegtayna waa cafis ciddaan wax ka sheegnayna iska kana cafido anoo afka isbeddeldoonka ku hadlaaya qof loo taaban karo ciidamada booliiska iyo ciidamada nabad sugidda iyo cid waliba waxa weeye qof ciddii xidhanna in loo soo daayo aragti noocaasa u xidhan cid dambana aan loo xidhin qofkii bulshada dembi ka gala waa laga qabanaya taa waa sharci wa sababtaa bulshadu maba jiraysa haddii qofkii dembi gala aan laga qaban laakiin aragtidii isbeddeldoonka qof wax loo yeeli karaa ma jiro isbeddeldoonkana waxaan ugu baaqaynaa inay midnimadii ku bedelaan barnaamijkii dib u heshiisiin ku bedelaan isu tanaasul ku bedelaan maxaan ku idhahdaa wada shaqayn buuxda intaasaan hadalkayga ku soo koobi lahaa waxaa jiri doona fadhiyo dambe is-aragyo dambe isu imaansho dambe maxaan ku idhaahdaa layswada hor fadhiisanayo mugdi ma noqonayso arrintani iyo maaragtay laba qof oo meel gaara ayaa ku shawrta haddii alla yidhaahdo intaasoo dhan u diyaar garooba waxaan codsanayaa isbeddeldoonka wixii hadda ka dambeeya inay hogaamiyaan dib u heshiisiinta barnaamijka dib u heshiisiinta barnaamijka dib u heshiisiinta walaalaynta midaynta turxaan bixinta salaadiinta iyo dhallinyarada iyo siyaasiyiinta iyo culimada iyo maxaan ku idhaha ganacsatada gabdhaha tiimkaasi inay hogaamiyaan oo iyagu ay noqdaan dadka liidhka qaata oo arrintaas maaragtay ka midha dhaliya gaadhsiiya deegaamada kale iyo meelaha kale intaasaan aniga ku soo ururin lahaa waxaan codsanayaa inaan isla qaadano barnaamijkaas maxaan ku idhaahdaa aan ka wada midho dhalino haddii alla yidhaahdo nooca maxaan ku idhaahdaa miisaankeenna maxaan ku idhahdaa wuxuu wax ku tarayaa marka aynu si dhaba waxa uga wada shaqaynayna waxbuu tarayaa maxaan ku idhahdaa ciddii naga fikir duwanaata oo tidhaahda maxaan ku idhahda war aniga arrintaa arrin ka fiican baan hayaana waxaa weeye fikirkooda waa ku ixtiraamaynaa maxaan ku idhaahdaa walaalahana weeye laakiin waxaan ugu baaqaynaa inay ku soo biiraan wada hadalka iyo dib u heshiisiinta iyo iscafinta iyo isu tanaasulka inay ku tanaasulku ceebna ma aha dembina ma aha xumaanna ma aha liidnimana ma aha waa sharaf iyo karaamo iyo ixtiraam waay in la isu tanaasulo waa mahadsantii